aad noo sheegtay tiritirigii cadaanka noo sheegtay lambarkaaga wala saxda dadka u sheegay lambar aad qabayneed bad noo sheegtay ma kuwa meerigi ma kafa ku sii dhaafta waxaad noo sheegtay war islaanta hooyo ogtay gurigii way ku iibisay meeshii reed meherdi ku iibisay wixii dhawantay ku iibisay baroor kale haysatay marka saanta waxa soo xusan annaka biska daayo war wala waxa ku leenay saanta soo xusan annaka bayna soogin ba hooyada macaan soo maxamed igu lama dhaalan qofne wanaaji qalbigaaga waayaha adagiyo xilliga weynuhu hakumuutiyo YouTube gala faniskayga marka daragtaan walwala waligay dublada ma dhihin jala isoo dabagala ama isdaldala ani waya wika yiri kulli loo gala yalka jaani sumahayo halkaasoo joogtaan aad iyo aad soo dhawaada walaashin Yasmin Alleeya walaalo maxaad noola soo hadli weydi walaal maxaad hooyo mobilka uga qaban weydi waad ogtahay walaal in hooyo ay ku iibisay wixii hanti guriga taalay waa hadallo kamid ah fanaanka Ismaaciil Danan walaalkii oo cabanaya oo ku dayacan magaalada Hargeysa waa fanaan runtii codtolmoon heesaha soo saaranay kamid tahay heesta walaalnimo waqtigu lama dhaalan qofne wanaaji qalbigaaga waayaha adagiyo xilliga weynuhu hakumuutiyo والبهار لكم مرا وحما سمينه مرابكم heestaas oo walaalnimo ayaan ku xasuusanaa waxa cabanaya ee walaalnimo ooyaya ee Ismaaciil Danan ka cabanaya la walaal annaga waana dayacday hooyada waa dayacday waa walaalkii waxaan ku xasuusanaa heestii hooyo ee Ismaaciil Danan qaadi jiray ee ku luqay jiray hadaba maxaa ka jira arintan waxaan jeclaysan lahayn inaad channelka subscribe saartaan nala daawataana Ismaaciil Danan walaalkii ya cabashada uu soo gudbistay ee uu kaga cabanayo adigana daawanaya ma rumaysan kartaa muuqaalkan mise ma rumaysan doontid si kastoo ay ahaataba Ismaaciil Danan walaalkii oo weeg aan laga garanin waa kana ila daawada Allah tan oo kale wali kamay dhicin geyga Soomaalida waa qisaar gagaxay oo aad la yaabi doontid walaal ii soo jawaab lambarka maxaad nooga qaban weyday waa Ismaaciil Danan walaalkii Maxamed Cabdi Cabdilaahi oo ku magac dheer Maxamed Gacan waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa السلام عليكم ورحمة الله تعالى مقعيقوا محمد عبد الله مقع دير محمد قعن وحنا إسماعيل دان ولالكي باني مركا وحنا لي إسماعيلو ودي سوكتا ورال إما كأرك السدي حالك يسدي برقي ودي وقابرقا مقفاك سارني ودورتي إنا دولكي يوحي بسو حراشني إما كان وضا مدى قالات باتكتي سي والله بس كدكتي دادكي حسوسين ميسي مركا وحنا كل وعاوتاني هاي والودو قد حالتا عن كل مرني مركي ضيعنايد مقفا كويستي وأنا قرأنا هويو المهدي اللي هايستو برضه يهوجا يكتشفتو أي يبيني سايدون السوقي وحنا أي ضياع سكوا أي تفت كوا يستو أيضا وقدم غنا يسكا كم كان صابته عمر والبهوي ده واحد حنون كوايا المها كم كان المر والبي المها يكعنتي ده كوا يستا ما دمغه سكستي هاتبا ويلكر واحد وتاجي هويو بيك وقدم غتاي هنتدي أنا قلنا يوحي الدون نوعها waxa ay ku dul dhigtay adiga markaas haddana waxa aad samaysay heer aad nadayacdo annaga oo telefoonka xitaa naga qaban weey leenay arrinka sideen ka bedel oo dadka soo eeg oo telefoonka naga qabo telefoonka bahlada ma kulma mid bedesha waxa uu taagan yahay dadkii dib u soo eeg xaafadii dib u soo eeg hooyada dib u soo eeg oo mobilka naga qabo yaa sidaa leh walaalkii yuu ku leeyahay walaalkii yaa sheegaya muuqaalka walaalkii yuu ku dacwoonaya walaalkii telefoonka naga qaban ku leenay daadeerna la soo xasuuso شاه قرحوني جمال سليدة جوك دمايسي جوهرة سميدة وجل عاد سوجيدا نوغدا وجل عاد سوجيدا نوغدا ضيع الظروف طيب بلانبلك كم موقدا waxa uu sheegay هذا رهانتي Ismaaciil Danan dharka uu kala bedelayo xaragada quruxda heesiisa 40 milyan iyo 60 milyan daawanaya channelka uu sameystay iyo sida uu joogo Yurub iyo walaalkii sida uu dayacan yahay oo isagoo da'daas ah oo inta doona ka yar oo u gartay inuu hooyadii u rafaado adigu maxaad u garan weyday laakiin duruufta hooyada ku jirto inuu reerka ugu adeego duqaan tan yar isla markaasina caruurta ka yar islaanta iyo kirada uu ku bixiyo duqaanta oo uu kaga shaqeeyo shirkadda dhaweeye maxamed waxa uu sheegay in Ismaaciil la soo xiriiray sida ugu degdega badan leh ila qofku hadduu dhintaba waa laga samraaye
horaan waxaan ku leeyahay fijistar baan xaafadda ugu shaqeey waxa uu taagan yahay ninka soo gudbinaya soo tabinaya wiilkani waxa uu ku dayacay magaalada Hargeysa duqaanta ama gaariga uu watana waa laga kireeyaa welibana waxa uu ka biiriyaa hooyadii iyo xaafadooda iyo caruurta ka yaryar wuxuu sidoo kale ka sii bixiyaa kirada waynu garan karnaa magaalada Hargeysa sixir bararka ka taagan guri kiradiisa iyo biil gurigiisa sidoo kale ta dhaweeyaashu waa mid gaari aan leedahay iyo gaari aan lahayn gaariga aan lahayn habeen walba waxa laga rabaa lacag ku dhow $10 habeen walba iyo $10 laga rabo ayaa mararka qaar waan aqaana qaar kamida waa ay ku go'daaba ninka gaariga iska leh bay ku go'daay ninka gaarigu kirada ku yahay kiradii ay ku go'do muxuu xaafaddu soo kordhiyay oo mid isweydiinteeda mudan welibana kira ligisa kuryaaniya marka xabiilkii xaafadan ku bixiya kirooyinkii baan ku bixiyay iskuuladii wixii baan ku bixiyay hooyo dadku arrin waxay soo watay birgdheed wixii ay hayso dhulka iibsay marka waxaan ku leeyahay daadeeranba dhimashaan ku qorno daadeeranba waxaan ugu tirwaa waa qoys tan yara waxay hooyadii ka shaqaysaa suuq laakiin horta soo ma ahayn wiil ay walaalihiin oo kala jirta mid kale ka weyn baa jira fanaan oo fanaan isaguna markaas waxa dhici karta waxa uu haduu wax ku ogi walaalkiisan kale Ismaaciil dana ma taageer reerka waxaan ma kan kalena waxba gacantu ku haya waxa laga yaabaa in ninka kale positionkiisa qayb kamid ah hayo ninka noo qayb kamid ah hayo aad ay u badan yihiin waana adag tahay markaad kiroolo u baratay reer kiroolo u bartay maaha saan filayo marka kiradii iyo masruufkii labadii way isturfuureen sidoo kale tana waxa laga yaabaa walaalkiisa kale uu ku soo dari lahaa in intii taagtiisa uu shaqeeyo oo wax taro laakiin ninkii ay aad ugu tabceen oo moolka qaban la ay aad u damqasho ninka barta dhigayna uu yahay sidoo hadalka u dhigay iyadoo khudradda halkaasi ku iibisa maxamed waxa uu sheegay markii Ismaaciil Daran tahriibe uu maray jidka dheer ee Liibiya in lagu xukumay lacag dhan $30,000 oo qoyskoodu u ururiyeen isla markaasina ay iibiyeen guryihii iyo hantidii ay lahaayeen markuu halkaas ka baxay oo uu tagay Ingiriiska Ismaaciil Daran ayaa la markii ka qaban waayay isla markaasina soo xusi waayay maxamed waxa uu sheegay in lambarka ka qabto oo uu soo xuso geeri iyo nolol wuxuu ku sugan yahay ula soo hadlo daawadayaal idinkan waxaad ka codsanaynaa inaad sheer garaysaan muuqaalka isla markaasina aad like saartaan nolol iyo geeri midkii aanu ku sugannahay naga soo wardan doorka qaado muhiim ma tahay in hooyada lagu bariyaa no qofay hooyadii nooshay oo 20 jir tahay ay u baahantahay gacantiisa in adiga lagu bariyo daaye micnaha mabay ahaynba in la iraahdo inankaagii baan telefoonka qabasho ka qaban in la iraahdo macnaha hooyo loogi booski ku jirto hooyo waa qaali macnaha wiilkan wuxuu sheegay in hooyada macala lacag kugu hantideedii adiga ku iibisay ubadkeeda ay ku dayacday marka ismalihi mara xitaa hadaan hooyada hantida ku iibin Liibiya xitaa hadaan hooyada ku dhaafino tolkaaga ku dhaafiyeen ma mudantay hooyada si ka haday macal hooyo ay kugu xun tahay noqa adugii hooyo ducadeeda qaata hooyona qiimaha leedahay loogi aadiya ku soo aad noo sheegtay tiritirigi cadaanka noo sheegtay lambarkaaga wala saxda dadka u sheegay lambar aad qabayneed bad noo sheegtay ma kuwad marigi ma ka faa ku sii dhaafta waxaad noo sheegtay war islaanta hooyada ogtay gurigii way ku iibisay meeshii meherdi ku iibisay wixii dhawantay ku iibisay baroorkeeda haysatay markaas aad waxaan soo xusan annaka biska daayo war wala waxa ku leenay islaanta soo xusan annaka bayna soogin ba hooyada macaan soo maxamed hadal dawaadhay حاول ما يحكوا الوالد كاسو حسوسه معنا أنا بحبها نسوح رج ويان كل رج وما بيكمل في سن أم بعد كقاعدة مدركة كنا قنيان لكن ما مضى كل وقت ما معنا شقيسين شرتها هذا شقلاني كل عضي ما كركو شرتها هرجيسوا لوجي ما تقف كركو شرع عليس كيا برشة كسار ما دوّعوا عادك اللي حمد شريني والد كيس آد ودر يلا بريء واحد دقيقة كيس كشرينا إنه كشقيسين شري أوحوا هذا حافظ السين شري اسماعيل دار waxaan ku moodayay in af Soomaali gooni lowday oo say wallahi noqotay ma moodayay reedkiini hooyada bay lowday hadaladaasi waa hadalka ka yimid awil bilay Yasmiin oo fadhiya laakiin waxaan ku leenahay arintaas haday run tahay oo wiilkaasi walaalka yahay in adeero waa guumowday waana ceebowday wallahi baan kugu dhaaranayaa hadii aad waxba tiri weydo ummadda Soomaaliyeed ba u gurmanayso wax taraysa ee ku ceebowday adigana ceeb ku filantaas wax u tar عدة بنا هيساق ولا اللي مدري يصير يقرب ما كل شيء هي مركا هو وقال والله واحد لو قصلا ماشي مطال إيه واحد لقوا يا ماشي يعني الله لا إيمايو قفت مير لنا لقوا يا ماشي طالع أبو ما ستين أبو يديش على يتر مقال كي يكون مدرنا حين تجينا سداسيو هويو هنولات